ما شاء الله ما شاء الله شيخيga والله ku barakeeyo akhriya dunba ilaahay ku xifdiyo meesha aad marayso Allah kugu nabadgeliyo sheekha su'aasha kale aan ku weydiinayo waxa weeye hooyooyinka Soomaaliyeed ilaahay khayr badan ha siiyo waa u dabdhaxaadkii nolosha tacab badan way geliyaan ubadkooda laakiin waxaad moodaa marmarka qaarkood wax walba sidii ilmahu markuu yar yahay maaragtay cuntada iyo labiskiisa nadaafintu ay maaragtay ay maaragtay oo marka ay ugu koobaan gabadhu markay weynaato tadawur sameysay maaragtay gabadh aqal geli karta ay maaragtay ay isu diyaariso in hooyooyinka qaarkood aanay gabadhii wax cilaaqa wax far badan oo sheeka aanay la yeelan oo aanay wax badan u sheegin oo ay nolosha iyadu ka og tahay gabadhana way sugaysaa arrinta iyada ay gabdhaha qaarkood dhibaato fara badan bay ku keentaa taas waayo wax fara badan oo ka qarsoonaa gurigooda ama maaragtay bulshada dhexdeeda kaga qarsoonaa ayay hadhow la kulantaa oo aanay wax fikrada ka haysan qaarkoodna hadhow lagu dhaliyaa marka maxaad hooyooyinka Soomaaliyeed kula talin lahayd inay maaragtay markay gabdhahoodu weynaadaan si ay u soo diyaariyaan maxaad kula talin lahayd oo ku haboon gabadha muslimada ee hooyada ah ee gabadheedu guur gaadhay maxaad kula talin lahayd alxamdulillah horta waa su'aalo aad iyo aad u qiimo badan runtii cadliga cadaaladana ilaahay baa jecel tabaaraka wa tacaala hadda ka hor qodobo aan gooni ooga hadalay oo dardaaranka sodohda baa jira waxaan dhihi karaa kelimo wadna xanuun ah ayaan ku bilaabayaa oo la iga baranin baa laga yaabaa oo aan dhahayo haweenka intooda badan ee aan soo diyaarinin gabdhahooda boqolkiiba intaa waa kuwa loo soo furo wey waxaana leeyahay gabadha in la furo sababka ra'iisiga hooyadii dhashay baa ka ah suurtagal ma aha hooyo garanaysa qodxaha iyo filginnada iyo xanuunka guurku uu leeyahay hooyo garanayso ayadaba soo jabtay inay kala bakaysho gabadheeda waddadaas ay mari doonto inay macnaheeda u sharaxdo inay kala bakaysho waxaan isleeyahay waa khudlaan horta way khudlaan bay garabkeeday ka baxday gabadheeda waa kow waa marka labaadee waxaan leeyahay hooyadaa waa khayru mas-uul waa marka saddexaadee waxaan leeyahay wixii meeshaa ka imaada qayb bay ka tahay haddii reerkaa iyo guriga hadduu dumo waa marka afraadee waxaan leeyahay mas-uuliyaddii alla saaray ma aynan gudanin gabadheeda jacaylka runta ahay sheeganaysana waxba kama jiro wa ilaa hadday runta inaad gabadhaada si dhaba u jeceshahay oo qodan oo aad u xeel dheer oo mustaqbalkeeda dheer taabanaya oo ninkeeda taabanaya iyo waxa dhex mari doona ood adigu garanayso oo aad aabbaheed isla soo marteen oo laga yaabo aabbaheed inaad isfurteen laga yaabo aabbaheed inaad kala tagteen laga yaabo aabbaheed inuu dhib weyn idin soo dhex maray raggoo dhanna ay ninkaagaas oo kale inaad ku qiyaasto soomaalidu khayr wax kuuma dhibee kaama dhibaya shar u tookay bay dhahaane inaad ninkii dhalay gabadhan aad horta ka qiyaasato waa adiga cabaabaya waa adiga ooyaya marka inaad gabadhaada aad waana siiso oo aad sii diyaariso oo aad xagga cuntada ka diyaariso oo aad xagga nadaafadda ka diyaariso oo aad xagga baarinimada iyo maqalka ka diyaariso oo aad xagga maamulka iyo qaabka rag loo maamulo aad ka diyaariso bal xagga gogosha iyo xuquuqda ay leedahay lagu leeyahay aad ka diyaariso dhinaca muru'ada iyo sharafta dadnimada marwanimada aad ka diyaariso qaybta hadal yaraanta iyo hadalkoo la raro iyo guriga sirtiisoo la bixiyo dhibaatada ay leedahay aad ka diyaariso bal ehel iyo qaraabo inay lahaan doonto seedi iyo sodog inay lahaan doonto qaabkay oo la dhaqmi lahayd inay ka diyaariso marka inay diin ahaan u diyaariso oo ay fiqi ahaan u diyaariso oo ay caqiide ahaan u diyaariso oo ay shakhsiyadeeda si dhaba ay u dhisto
oo ay akhlaaq ahaan u diyaariso oo ay ka soo saarto gabadh dawlad keligeed soconaysa ah oo caqligeedu dhisan yahay oo fahamkeedu dhisan yahay oo reer sida loo dhaqdo ay qodan tahay gabadha noocaasa inay hooyo walba soo saarto waa midaanu in badan tamaninay waana arrinta ay salafkii hore ku guulaysteen waana midda kutubta noogu qoranee in la dhaqan geliyo mudan markii la waayeyna waa sababta furitaanka reeraha iyo dumitaanka reeraha qaybka ah maxaa yeelay hooyooyin badan baa waxna qorin xataa waxna aqrin karin hooyo aan marka waxna qori karin waxna aqrin karin intee in leeg bay nolosha ka qaadan kartaa laakiin qofku markuu wax aqrin karo oo wax fahmayo ayuu buugga soo gataa luqaduu doono ku qoraadee markaasay noloshibay kor u sii qaadaa ooy kor u sii tatwiirisaa waxaan rabaa inaan dhaho hooyooyinka maanta jooga haddaad carruurtiina gabdhihiina saa u diyaarin weydaan dad baa diyaarin filimaad diyaarin sheekh youtube baa diyaarin oo sheekh googlekaa diyaarin oo sheekh mataqaanaa facebook raxmatullaahi calayhim jamiican kuwaas ayaga abaa diyaar culummadaas ayaa diyaarinaysa talow maxay siin doonaan oo macluumaad nooce ah ma waxaad iga dhaadhicinaysaa gabadhaydu waxa ay miisaan ka dhiganayso waa filim hindi oy daawatay waa filim american oy daawatay waa jacayl beenbeen oy meelaha ay ka aragtay ama ay buug ka akrido kharaami ah ama ay may arrinkaasi sax ma aha saa daraaddeed arrinkaa waan adkaynayaa saa'ilkuna su-aashiisa waa ku mahadsan yahay ceel baan u qabay su-aasha in la weydiiyo waxaan leeyahay xaaskaygaana ka bilaabaya amaama allahi waa laydin weydiinayaa gabdhaha hoostiina ku dayacan war gabdhuhu cunto ooma baahno oo dhar ooma baahno oo dahab ooma baanee gabdhaha inaad dhistaan oo shaksiyadooda u dhistaan oo aad iimaankooda u dhistaan oo caqiidadooda u dhistaan oo siday ragga u dhaqan lahaayeen aad u dhistaan taa weeye midda idinka waajib idinku ah cunidii cabitaanka ilaahay baa kafaalo qaaday tabaaraka wa tacaala iyagoo uurka hooyada ku jira ayaa waxay cuni lahaayeen oy cabi lahaayeen oy xiran lahaayeen ilaahay sii qoray tabaaraka wa tacaala laakiin waajibkaa wey qudwana waa inaa idinku noqotaan hooyo saa arooska u wareegaysa gabadheeda ka waran markii ay soo daahday maxaad u soo daahday adaa saddexdii habeennimo yimid oo hooye ah hooyadii qaawanayd markay gabadheeda la dhaho gabadhaada way qaawan tahay na dhar xidho dee adigii baa qaawan aabihii baad ku qaynaysaa dhalay ayada haye maxaad ka sugi marka ninkeeda ayadana ma inay mindi gelisaad ka sugaysaa marka idinku waa inaad qudwo noqotaan haddaad haweenka tihiin kadibna waa inaad gabdhaha ay noqdaan gabdha ka soo qalinjabiyey madrasa kamida madaraystii nabi maxamed sal slam madrasa kamida madarasaadkii abibakar madrasa kamida madaaristii caaisha khadiija faatima binti maxamed calayhi salatu wasalam gabdha ka soo qalinjabiyey oo caqligoodu uu xidigaha marayo gabdhaheena caqligooda maanta xaggee joogaa in badan oo kamid a wuxuu joogaa rays magaadhadu meesha la yidhahdo dhulka la saaro lugaha ayuu joogaa caqliga iyo fikradda ilaa ay gabadhu dhahdo haye wiilkii maanta shawaarma noo soo qabo haye noo soo adeeg nooga soo qabo maxaa la masuuqa soo baysaa qada noo soo qabo haye berina noo soo qabo gabdhaha waxa ugu badan maanta weydiiyaan waxaa kamid a sheekh wal inadaan guursanayo waa inaan helaa nin hooyadii dhimatay raashinkana karin yaqaana ilaa hada alxad fikirka takhallufiga ah ee aan waaqica iyo diintaba midna salka ku lahayn wax kale ma ahana filimaa bare idinku ma aydan barin ha ooga baqa rabbigiin gabdhihiina oo diyaariya reer wanaagsan bay noqon doonaan biidni illaahi wallahu aclam